Bismillah, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 22 ee ku saabsan pharmacology-ga. Waxaan kusoo dhex jirnay daawooyinka loo yaqaano antibioticska ama daawooyinka la yidhahdo qalajiyaasha ayaan kusoo dhex jirnay. Antibioticska markaan ka hadlaynay gurubyo ayaa loo kala qaybiyey. Waxaan soo dhamaynay groupkii koowaad ee ahaa penicillin groups. Hadda waxaan qaadanaynay groupka labaad oo ahaa aminoglycosides. Aminoglycosideska waxaan soo aragnay definitionkooda ama introductionkooda warbixinta koowaad. Waxaan kaloo soo aragnay actionska ay sameeyaan. waxaan rabnaa maanta inaan qaadano usage waxyaala loo isticmaalo gram negative bacteria causing. Waxaa loo isticmaalaa germska ama infectionska ay sababta gram negative bacteriada sida bone and joint infections, infectionada ku dhaca lafaha iyo kala goysyada, respiratory tract infections, infectionada ku dhaca habdhiska neef mareenka ama marinka hawada, septicemia, infectionada gala dhiiga, including ka mid yihiin neonatal sepsis, ilmaha yarka oo kala gasho kala bacteriadaas ama sepsis ay ku sameyso sumowid, urinary tract infections, infectionada ku dhaca habdhiska mareenka sidoo kale lagu daaweeyaa, post operative infections, infectionada intaan qofka la qalin oo kala hayo kala waxyaalahaas loogu daaweeyaa ama la siisiyaa, sidoo kale intra-abdominal infections, infectionada ku dhaca caloosha ama abdominka sida peritonitis oo kale ayaa lagu daaweeyaa, skin infections ayaa kamid ah infectionada lagu daaweeyo, including ka mid yihiin burns oo kale gubashada dadka ku dhacdo kala ama gubashada waxyaalahaas lagu daaweeyaa. MBA muxuu yahay marka if it should be used for the gram positive bacteria. Waxaa loo isticmaali karaa gram positive bacteria only when other less toxic drugs markii aysan jirin daawo kale oo less toxic drugs ah oo either ineffective or contraindications markii aysan ku lahayn toxic aysan ku lahayn ama wax effective aysan ku lahayn daawooyinkan aysan qofka jirkiisa ku lahayn oo kala ayaa loo isticmaali karaa gram negative ka badanaa iyada waxaa loo isticmaalaa gram negative laakiin halkan mar ayaa loo isticmaali karaa gram positive oo markay tahay less toxic drugs daawo aan macnaha sun badan ku lahayn oo kala ayaa loo isticmaali karaa. haddaan iska gudubno qaybta uska loo isticmaalo contraindication ayay leedahay daawadan oo waxyaala lid ku ah loo la sii karin dadkaas waxaa kamid ah hypersensitivity to aminoglycosides, daawooyinkan qofka xasaasiyada ku qabo lama sii karo, long term therapy sidoo kale waqti dheerna lama qaadan karo marka laga reebo streptomycin. long term therapy lama rabo in la siiyo qofka marka laga reebo halkan daawo oo kamid ah aminoglycosideska loo yaqaan streptomycin oo for tuberculosis loo isticmaalo maadaama tuberculosiska ay waqti dheer la qaato. For patient with impaired renal infections lama sii karo dadka keliyaha ka jiran, sidoo kale pre-existing hearing impaired dadka maqalka waxyaalahaas cillada ay ka jiraan lama sii karo. labadaas meeloodba uma fiicno lamana siin karo. intaas haddaan kaga gudbina side effectiga ay leedahay qofka markuu qaato daawooyinkan waxaa kamid ah ototoxicity wax loo yaqaano qofka dhegaha inay ku keento toxicity, sidoo kale inay keento wax loo yaqaano tinnitus oo dhega xanuun ama waxa dhegoreenka la yiraahdo, hearing impaired maqal la'aan inay keento, ataxia inay keento qofka inuu ku dhaco dhacitaan ama qofka inuu qalal camal ku dhaco murqaha wax istaagaan, dizziness inay keento wareer ama qofka inay u keento suuxsanaanta nooc kamid ah oo loo yaqaan dizziness wareer ah, renal impairment keliyaha inay fariisiso qofka oo loo yaqaano nephrotoxicity, hematuria inay keento kaadi qofka inay dhiig soo raaciso ama proteinuria sidoo kale protein inay kaadi soo raacdo. sidoo kale neurotoxicity ayay keeni kartaa neurological problem, headache madax xanuun, tremor qofka jaran inay ku keento, lethargy qofka inuu dhaqaaq la'aan ama qofka iska yaalo ku keento, numbness kaabiya inay keento, burning of face qofka weji hur inay ku keento. lambar 4 waxaa kamid ah nausea inay keento labalabo, vomiting qaaco, skin rash maqaarka in nabar kasoo bixiso, upper infections weliba sidoo kale infectionada ku dhaca habdhiska neef mareenka qaybtiisa sare inay keento. drug interactions daawooyinkan waxyaalaha ay la falgasho waxaa kamid ah vancomycin addictive ayay ku tahay daawada la yiraahdo vancomycinka oo waxay weliba toxicity and nephrotoxicity kale ay keeni kartaa. penicillin decrease the effect of aminoglycosides, penicillin daawada loo yaqaanana waxay hoos u dhigtaa saameynta ay leedahay aminoglycosideska marka haddii ay dhacdo waxyaalahaas interactive ay ku noqoto waa lagu bedeli karaa daawadaas kale. drug concentrationka daawada marka qofka la siiyo waxaa loo baahan yahay in la siinayo in la hubiyo assess history of the hypersensitivity. waxaa iska hubinaysaa qofkan daawadan xasaasiyada ku qabo waxyaalaha ka kooban oo dhan aminoglycosideska anti-infectiveska ayaan ka fiirinaysaa. sidoo kale IM administration badanaa muruqa marka ka siinaysid injected deeply into the muscle to minimize pain, qofka muruqa si fiican ugu dur oo hoos u gaarsiiya banaanka sare ha ka durin si xanuunka u yaraado.
administrate for only 7 and 10 days qofkan daawada waxaa la sii karaa 10 ilaa iyo 7 maalin. Obtain laboratory studies for renal functions mar walba qof daawooyinkan qof siinaysid waa inuu lab soo maraa oo lasoo hubiyaa wax loo yaqaano RLF ama renal function test in loo soo sameeyo. Continue to monitor for the toxicity mar walba inaa monitor ku sameysid qofka dhigiisa maqalkiisa inay wax ka bedeshay dhibaato u keento kale ayadana waa muhiim. Discuss with the client family of importance of taking medication and other appropriate prescribed time intervals qofka waxaa ka wareysanaysaa qoyskiisa ama asaga in ay jirto daawo u socota oo prescribing loo soo qoro kala inta daawadan ay socoto kala daawadan aad siinaysid oo kala inay daawo kala jirto u socoto kala waxaas oo dhan waa ka hubinaysaa si aysan u dhicin macnaha inay intervals ay timaado daawadii kala dhisto kala dhex gasho. Marka waa very important inaad qodobadan iska hubisid marka aad sameynaysid aminoglycosides markii aad siinaysid weli maana gaarin marka gurubyada lafteeda usii kala baxdo waa arki doonaa insha Allah laakiin generally explanationkeeda ayaan rabnaa inaan isla fahanno sida useska loo isticmaalo actionka ay qabato contraindicationkeeda side effectkeeda drug interactionkeeda waxyaalahaas oo dhan hadaad fahantid oo aad xooga saartid waxaa imaanaya marka inaad wax badan ka fahansan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu halkaas ayaan ku ekeenaynaa.